munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay Qudus Cafeteria Restaurant and Hall Conference oo goob cusub oo ganacsi oo si heer sare ah loo nashqadeeyay isla markaasina isugu jirta maqaaxi cunooyin cafeteria iyo holalka xafladaha iyo shirarka ayaa waxa gudaha magaalada Ceergaabo ka furay ganacsada Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Dhoore waxaana munaasabadii furitaanka ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada kala duwan ganacsato qurba joog dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan ugu horreeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay adeegyada kala duwan ee laga heli doono Qudus Restaurant Cafeteria Hall Conference mulkiilaha meheradaasi Cabdiraxmaan Maxamuud Dhoore inaanu maanta halkan ku daahfurno Qudus Restaurant Cafeteria and Hall Conference oo run ahaantii in muddo aan wadnay oo aanu arkaynay inay tahay baahi degmadu ay u baahan tahay iyo gobolkuba ilaaha noo fududeeyay aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaadna waxaan u mahadnaqaynaa waxa aynu sameynay oo aanu idin keenay shaqaalo aad iyo aad u firfircoon oo loo carbiyay qaabkay shaqada u qabanayaan noocay doontaba ha noqoto ama xaflad ha noqoto ama individual ama qof ha noqoto ama casuumad ha noqoto aad baan iyagana idinku soo xulay inay idin adeegaan runtii waxaan meesha keenay ma aha wax cusub laakiin waa adeega u baahnaydeen oo aanu isleenahay dadku ha ka faa'iideystaan adeega waxa kale oo aan idin keenay oo kamid ah kuuga oo ah nin ajnabi ah ama yamani ah oo runtii noo sameyn doona cuntooyin fiican oo leh kuwan awalba isticmaali jirnay iyo kuwa cusub oo keeg haday noqoto xalwiyada haday noqoto waxyaalo kala duwan meel aan kala soocnay rag iyo dumarkay kala soocan yihiin waa meel aan ugu talagalay in laga helo service fiican intuu doonaba ha noqdee in soo dhaweynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa sidoo kalena waxa halkaas hadalka isaga daba maray qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada gobolka Sanaag xildhibaano xogayaha dawladda hoose ganacsato iyo xubno kale kuwaas oo si isku mid ah u soo dhaweeyay ganacsigan cusub ee Ceergaabo laga furay hore wuxuu noogu furay carwada guri bila oo wax fara badan oo adeega guriyaha ah insha Allah uu noo keenay Allah u barakeeyo haddana haddii uu maanta insha Allah tacaala hodheel fiican oo la fadhiisto oo dadku isugu yimaadaan oo magaalada hagaajiyo uu noogu daray jazaaka Allah khayr baynu leenahay Cabdiraxmaan waan ugu hambalyeynaa labada business oo ka hirgeliyay ama iminka laga dhawaajiyay halkan gobol Sanaag runtii waxaan iyana oran lahayn oo kula talin lahayn inuu inoogu daro qayb hurdo nimankan halkan hodheel ka furayna waxa weeyaan waxaan maraynayaa waa qorbo joogtii ugu horeysay ee maalgelin inta la ku sameeyay magaalada Ceergaabo waa wax aad iyo aad magaalada ugu baahnayd waa wax dadka iyo maxaan ku rahdaa iyo kuwa noo imanaya iyo kuwa magaalada joogaba ay aad ugu baahan yihiin runtii hodheelka Qudus ee caawa la furay waa hodheel loo baahnaa aad baan ugu soo dhaweynaynaa waana u ducaynaynaa ilaahay ganacsadaha hore ganacsiga uga furay ee hore looga soo hadlay qof dhifa mooyaane isbeddelku waa muhiim dadku inta badan waa ka baqaan marka waxaan ugu hambaliyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay hambaliyo waxaan ugu baryayaa inuu barakeeyo ganacsigan ilaahay waxaan ka rajaynayaa ganacsigii guuleystay inay noqoto meesha Allah u barakeeyo waan leenahay Cabdiraxmaan runtii wax badan buu ku soo kordhiyay gobolka waxaan idhaa anigu dhowr group maad u bixisay halkii guri biladii iyo meel kale jirto supermarket ah oo yara dhinacan ka sii jeeda halkan waa ganacsigii saddexaad oo ka furo mulkiilaha hodheelkan bilicda san caawa aynu daahfurayno inoo sameeyay Cabdiraxmaan isaga iyo hodheelkiisaba waxaan leeyahay mabruuk waa muuqataa inuu halkan hanti fara badan u geliyay inuu geesinimo dheeraad la yimina way muuqataa Cabdiraxmaan waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan iyo ragaaga Allah barakeeyo waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waanu kuugu mahadcelinaynaa waanu kuugu mahadcelinaynaa annaguna kullay waa noo wanaag in magaalada wax horumar uu ku soo kordho gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina mulkiilaha Qudus Restaurant Cafeteria Hall Conference uga mahadceliyay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan la yiraahdo ee hodheelka furay ee guri bila furay waa nin geesi ah oo aad iyo aad ugu soo dhiiriday inuu gobolkiisii Sanaag wax ka qabto hodheelkan Qudus ee hadda inoo furay daa furayno alxamdulillah rabbil caalamiin waa wax loo baahnaa waana ugu shukrinaqaynaa ninkaas waana kula shaqeynayna dhanka kalena qaar ka mid ah dhalinyarada kala duwan ee halkaasi ku sugnay ayaa mulkiilaha meheradaasi u mahadceliyay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa hoteelka qiimaha leh
oo ay magaalada Cerigabo u baahnayd anagoo ku hadlayna afka dhalinyarada gobolka Cerigabo waxaan leenahay waa hodheel loo baahnaa sid ma goortii loo baahnaana la furay Qudus Cafeteria Restaurant and Hall Conference waa meel runtii magaaladu ay u baahnayd si guud iyo si gaar ahaaneedba marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo aad baan soo dhaweynaynaa hoteelka cusub ee laga furay gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Cerigabo Barkhad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Cerigabo